goorma ayay dhammaanaysaa munaafaqnimada, cunsurinimada iyo nacaybka ay u hayaan reer galbeedka Islaamka? Waa su'aasha maanta ka dhex taagan caalamul Islaam. Waa xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah in World Cup-kii 2022 ee Qatar lagu qabtay uu ahaa mid kan ugu casrisan isla markaana ugu wanaagsan ee soo mari doona taariikhda kubadda cagta. Taana waxa ka marag furay bulshadii kala duwaneed ee isugu timiday waddankaasi Qatar muddadii uu socday koobka adduunku. hase yeeshee mar walba waxaad arkaysaa iyadoo Qatar la taagayo laguna aflagaadeynayo tallaabo kasta oo ay qaado. Bal hadda ila daawo kilibkani sida weyn ugu baahay dunida. After winning the World Cup, Leo Messi had a black robe draped over his shoulder by the Emir of Qatar. Why did the Emir do this? waxaad kilibkani dhexdiisa ku aragtay Leo Messi oo xidhan maro madow oo uu xidhay amiirka waddankaasi Qatar. Haddaba maxaa ay Qatar sidani u sameysay? Maxaa uu amiirku sidaasi u sameeyay? Ma calaamad ixtiraam lagu muujinayaba? Mise Qatar ayaa waxa ay isku dayaysaa inay qariso calaamadda Argentine oo ay humaag saarto? kuwan waa su'aalaha ka dhex dhashay muuqaalkani. Waxa caada markay ciyaartu dhamaato in xulka qaranka guuleystay uu kabtankooda u qaado koobka ay ku guuleysteen una la wadaago dabaaldegga taageerayaasha. kilibkani waxa uu ina tusayaa Leo Messi oo ah kabtanka waddanka ku guuleystay koobkii adduunka ee 2022 oo la guddoonsiinayo koobkii isla markaana uu hogaamiyaha waddanka Qatar u xidhayo marada madow ee loo yaqaan bishti. waa calaamad lagu muujinayo ixtiraam iyo qadarin, waxaana sida caadiga ah xidha dadka la maamuusayo iyo madaxda waddanka. dhaqan ahaan waxa loo xidhi jiray halyeeyada dagaalka soo baxa marka ay soo guuleystaan. amiirka Qatarna waxa uu qiray Leo ama kabtanka xulka qaranka Argentine inuu yahay halyey mar haddii uu la hoyday koobkii adduunka. waxaana uu ku maamuusay maradaasi bishti loo yaqaan ay xidhaan dadka muhiimka ahi. waxa kale oo aynu arkaynaa in Leo Messi uusan wax qalada ama dhibaato u arkin, xataa isagoo barowd ah madaxa kor u qaadayo isla markaana uu dhoola cadeynayo marka uu u xidhayo amiirku marada. kadibna waxa uu la dabaaldegayaa xulkiisa sida ka muuqata muuqaalka. balse dad badan sidaa uma arkaan. ha ugu horeyso warbaahinta caalamiga ee BBC laanteeda afka Ingiriisiga oo markii ugu horeysay bilaabay hadallo iyo su'aalo ay ka mid yihiin maxay Qatar sidaasi u sameysay, ayna ku eedeynayaan inay Qatar raadinayso attention isla markaana ay isku dayayso inay dabaaldegga ka mid ahaato. muhiimaddu haddaba waxay tahay kuwan dhaleecaynaya inuu Messi xidhay mardan loo yaqaan bishti miyaysan xasuusan inta aysan Qatar aflagaadeyn intii lagu guda jiray dabaaldeggii koobkii adduunka ee sanadkii 1970 ka dhacay dalka Mexico in xidiga reer Brazil loo xidhay koofiyadda ay Mexico ku caanka tahay kadibna markii uu ku guuleystay koobka adduunka taasi oo ka dhignayd calaamad muujinaysa tixgelin, qadarin iyo fariin dhaqameed ixtiraam leh. ugu dambeyn marka la eego abaabulkii Qatar iyo qaabkii bilicda iyo quruxda lahaa ee u soo agaasimeen World Cup-ka 2022 waxay ahaayeen in reer Yurub ay hambalyo iyo maamuus waddanka Qatar u diraan, balse kama ayna mudnayn inay kiciyaan hadallo abuuraya muran iyo cunsuriyad.